kulan ballaaran oo ay magaalada Hargeysa iskugu yimaadeen madax dhaqameedka cuqaasha aqoon-yahanka beesha Gaashaanbuur Cidagale waxa ay halkaasi ku shaaciyeen in musharax xildhibaan Nimcaan Cabdi Aabi uu yahay musharaxa u matali doona golaha deegaanka caasimadda Hargeysa martida sharafta leh dhinaca walba isaga timi waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh midda labaad de kulligeen waxaan u nimi halkan insha Allah taala inaynu dhiirigelino kaadkeenu intuu wax qaban karayana aynu qabanno in hadalkana de waa la yidhoon hadan uga daba oran maaye waa tii suldaanku inoo sheegay ummadii kale ka hadlayso dhamayno sheegeen insha Allah taala aynu kaga dhabayno wax Allah waxa aynu qaban karo ee awooda ama kaad ha noqoto ama wax kale ha noqotee insha Allah taala aan ku taageero wixii aynaan kari karayna دم بكر كروتاسو لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلهي نقول بكلفين أنت أسانك سوق عبيني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته المدة هذه أنا عالي هالنقطة هالكات كثير ودي إن شاء الله تعالى خير الله كل قلبي نمعان عبد أبي وأنت سنة هدو بدك لا يهدو بريك مربا أنت وإنه مرش الله كاه أنت وهم مروانة اللي بروق المدور شيء يوحول إلهي قرب كيس هكذا وأنا قوله ورالنا وكاه أنا برهانتي نمعان إنتان كجرانيو وحوين يرو أقويهنا كرتله فرفعون جناح صداقة ضد بدنا أو دورنا عاوية مثلا هبل وي وحنا ركيين سوى كبحنايا من أبيه مسقين شري وأبيه كل شيء دردارنا إثيوبيانا كبحنايا هدو ما فرنا تجنا ضدك دير تاساس بو عاونيا marka waxaan leenahay ninka yar lama baraq jabiyo xilin buu leeyay wuu garab istaageynaa wuu soo saareynaa mid walba kala dardaarmeynaa haddii markuu ilaahay meesha geeyo uu soo baxayaaye inuu iska ilaaliyo xaaraanta uu meel sarana hamigiisu noqdo aanu ku dagaalamo meernimo aad baan kugu soo ducaynaynaa talabaad waxa weeye inaynu diiwaangelintii baa marka nagu soo foodle codka miyiga iyo codka Hargeysa ka qoban dawaan gashanayn codka Hargeysa badan marka waxaan ku dardaarmayaa nin kastoo rabo inuu nimcaan soo baxo iyo cid kale gurigiina kaga bilaaba isweydiiyay imse qof baa ka haysta qof kastaaba waa inuu gurigiisa kaga bilaabo markaana jiiraankiisa ku garaaco markaana jiiraankiisa marka saas uu ku soo saari karaa nimcaan iyo cidda rabay kursiga ku hanano أدنى واحدنا حفلة إنك أنا كشاعين إنه كلها الديجان أنو شرحني نمعان عبد أبي وحوي أن واحد مثل ما واحد عن نكال لقد جايين وانك هيكون دريان إذا هيكون دريان مركو برارك هاي الجرتان بني بركوا حوي نكالو horta markii sooran oo dhalinyarada ahaa oo dadka dhex joogay horta madax buu ahaa imaka reer ku xiisay dartay inuu waxaan ku dhahay oo u qorsheeyo inuu noqdo xildhibaan golaha deegaanka kale anigu wax ku hadlayaa afka chief aqalka waayo cuqaashi waa maqan maanta waxa ku maqan yihiin kilka sanaad oo la ka socdeen bay ku maqan yihiin عقل عقال شوجا عقل سياد وحنصنا يو سجنا ينود عليه لو تشيفوا أيام مقالة شو لا شافيه مرة ساعات هاي عقلنا قاعد يوحنا تشيف عقلك غير برالة كاشامبورات عيد الجربري مرة ساعات لا هاي يوحنا مولد إلى هاي وحنا إيمان وحنا مولد إيمان مولد إلى واسط تشيف عقل أو يقول عن شريف عارك إذا قلب رياضا ما يسافر حفلة السجع أيام هو كيلها هل كان السجع ينوع هامات لكن تقول مغيه تستوي أنا قام بكاكا وكيلا نقدي سنة قوى الله يا تكلمنا كوحنا لنا هاي يواسك تردار نوح على سيرها والله قرتين إنه هو شو قرتوا الله قرتوا يسوي حلبان باشون هذا باشان بورين وحمر قالوا aanu leenahay horto halkan inanka looga keenin inuu xoola ka qaato xoolo soo doonto xoolo haysta xoolada way kaga baxayaan
laakiin tii waxa meesha loo keenay inuu isagu uu dadka wax taro oo caqligiisa iyo cilmigiisa iyo cimrigiisa dadka uga faa'iideeyo magaalada dadka badan degan yihiin milyanka iyo 500 qof degan yihiin oo anfaco dadka wax u taro ayaa horta halkan loo keenay isaga markaa horta waxaan leenahay hawshaas ay u diyaar garoobaysa hawsha dadkan ku anficilay iyo wadanka iyo magaaladaba ayaa diyaar garoobaysa dadkan waxa leeyahay kolley waxa la yidhi inay qoriseen deegaan ma dhiciyo dadka inta halkan joogta ee maanta fadhigan fadhida iyo inta xaafadaha joogta iyo inta miyiga ku maqan iyo tuulaash ku maqan iyo inta meel kale ku maqanba waxa leeyahay horta ninkan kaarka haysan ee kaarkii loo codeynaya haysan kaasa qori oo lagu dhicinayaa kaarkii hala qaato kaarkii hala qaato waxaan salaamayaa dhammaan ummadan isugu timi ee isugu jirta salaadiin odayaal culimo iyo madaxba waxaana soo dhaweynayaa musharaxa naasir cabdi aali oo garab taaganahay nimcaan cabdi aali oo si adag u garab taaganahay dhammaan haddaanu nahay beesha ama ummadda xafladan isugu timi aad yaanu soo dhaweynaynaa waxaana u rajaynaynaa insha allahu tacaala inuu ku guulaysto xilka uu doonayo ee magaranaysaa golaha deegaanka waxa kaloo aan magaranaysaa ku garab taaganahay inuu noqdo hadwargu soo baxeen alla la kaashano mid ummadda anfaca inuu noqdo saana ilaahay baan uga rajaynaynaa intaa ka bacdi waxaanu dadka ku boorinaynaa dadka hore hadalka uu marsaday odayaasha hore hadday sultaanku u horeeyey waxaanu ku boorinaynaa dadkii dhaweytay ee xusbitartamayeen ayaa calamada aad loo qaatay magaalada Hargeysa gudaheeda nin walba calan cas buu qaatay iyo calan madow waxaa mooyaane dadka siyaasiyiinta u dhuun daloola waxay ogaadeen cid walba kasta ama degmo walba kaarka lagu hayo war degmada intaasoo kaar baa ka gubatay deegaanka intaasoo kaarna way hayaan show gacantaaba lagu hayaano waxa la wada yahayba annaguna baa asaasiga gaba oo la yaacina markaa maanta sida odayaashooda ay ku hadleen waxa lagu magaranaysaa lagu dagaalamayaa ee lagu kala foosaya waa kaarka haddaynu cidlo ka mashxabadnada waa qalad waxa qabadka cidda waxa qabanaysaa ee xildhibaanada Soomaaliland wuxuu qabanaysaa waa ciddii kaarka sidata waxaanu leenahay maanta fursada koobaad oo haysanaa kaarka ha loo qaato si cad ha loo qaato si agarana ha loo qaato waxa weeyaan maanta waxa isku dhigay inuu wadadeenu naga gaashaabuur amba ummadda kale ee inoo timi ee jaarkeena ee maanta waxna qabanaysa hiiliyahooda inaynu hadda maanta aynu wax la qabano nimcaan cabdi aali waa inay yar oo haddana intuu yahay ka weyn waa inay yar oo haddana mutacallima waa inay yar oo haddana wax aad dadku in badan garanaya marka aynaa tahay nimcaan cabdi aali ninkii kale waa garanaysaa magaciisa waa garanaysaa minkusa gaarka wuu garanaya waa wuxuu ahaa mas dhalay ninkan waxa weeyaan waa ninkii cabdalla dhalo waa bas dhalay waxaana weeyaan xildhibaanku dadadu u garaacado iyo hunguri iyo dhowr u qaato laakiin dii isaga markaa mahaada gaashaabura ama ummadda kaleba waa nin ummadoo dhan ay tahay iskugu mid markaa waxaanu leenahay maanta hiil iyo hooda nimcaan cabdi aalow ummaddu Somaliland amba gaashaabura ama ummadda kaleba wixii ku yaqaanaaba hiil iyo hooda uu ku siinaya haddaba hiil iyo hooda maxaa lagu gaaraya waa kaarka kii haystaana wuu haystaa kii aan haysana waa inuu qaataa kaa waxa weeyaan haddii uu kaarka qaadan weyno isaga waxba tari mayno kaarka nin waliba waa inuu qaataa anigu waxaan haysto kaarkuma haysta haddana haddana qaado dee mari mayso kaarka hadda waa horta qaata walaaliyaa haddaan wax ku leeyahay nimcaan cabdi aalow xilkaas maanta lagu saaray horta ilaahay wuu ku siinayaa haddii alla idhaa haddaynu gaadhno laakiin tii ha noqon
sidii kuwii hore oo kale ee markii aanu codka siinay guurka galay ee guurka bixi waayey kaana ilaahay adiga kaama yeelo wasdanku wuxuu ku dhan yahay raggii horaa dhameeyey wuxuu ku dhan yahay ninkaa fidhaan hiiliyahoo baynu la garab taagannahay hiiliyahoo waa la garab taagannahay ilaahayna waxaanu ka baryaynaa isagoo xaadira inaynu soo joojino golaha oo xildhibaanka uu usoo baxo labaad mawduucana meesha waxa weeyaan xildhibaan nimcaan cabdi aabi waa nin dhalinyaro ah hankiisuna dadka qaar haddii ay aaminsan yihiin gaashaanbuurada inuu xumeyn ama xumeyn wax leen gaashaanbuuray laba iyo midba way soo saari kartaa oo codkeedu waa ka badan yahay midda labaad marka labaad nimcaan waa la dardaarmanaayo waxaan leenahay horta madaxnimada xagga sare laga bixiya haddii ilaahay ku qadarin waad helaysaa haddii aan allaynoo qadarinna waan istijaabino ma xumin oo hankeena mar kale insha allah ku gudano dhalinyarada tahay mar labaadka hal qodob oo dardaarma reer buraaleyo reer buraale waxay aaminsan yihiin haddii iyagu ay wax doonaan gaashaanbuurada inay xumaanayso taa waxaan leeyahay macni gaashaanbuurada xumaanayse gaashaanbuur reer buraale waxaa jiray inaynu hogaamino ayaynu gaashaanbuur ku guulaysanaysa haddii inagu gaashaanbuur daba marnana gaashaanbuur ku dareysanaysa ay reer buraale weyn intaa aaminsan gaashaanbuurna waxaan leenahay waa laba iyo midba waan soo saari karnaa codkeena iminkana waa isdiiwaangelina horena 9 bilyan ka badan baynu haysan markaa sidaa ku abshira xildhibaankana waxaan leenahay qalbi fure gacmo fure usoo dhawow waa la shaqaynaynaa hankiisa iyo himiladiisana waxaan insha allahu tacaala doonaynaa inaanu noqdo mid midho dhala marka hore waxaan salaamayaa gurtida iyo marti sharafta iyo dhalinyarada aqoon-yahanada isugu timi meesha dhammaan horta waxaan ku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan ka bacdi halkan waxaanu isugu nimi anagu waxaan wataa marti sharaf marka ciidagale kuma filla garxajis baan wataa iyo harti haddaan hay anugu marka ciidagale keliya mudane meesha ina marayaan waxaas marka anigu waxaan ahay sudaan waa la deganahay ciidagalaha laakiin waxaan sudaan warsangelaya dadka badankiisa noo yaqaana waana lagu soo dhaweeyey waana lagu soo sharafay xildhibaanka waxaan leeyahay cismaan maxamed nimcaan cabdi aabi waxa aan ku soo dhaweynayaa nimcaan cabdi aabi musharaxnimada iyo sharafta waxaanu diyaar u leenahay oo la garab taagna hiil iyo hooba haddaan aan ka wakiilkahay hartiga magaalada iyo garxiska labada garxiska wala kusoo dhaweynaa waanu garab taagan inkastoo xildhibaan aniga ii sharaxan yahay hadda xildhibaankaygu barigo adigu la tegaya kursigiisa laakiin kii hargeysa adaanu ku siinayna waa sida waa ina sida ogaasa waanu kusoo dhaweynayna ta labaad waxaa lay sheegay imanka maan ogeyne qolada reer bulaale waa baa caligeliyo markaa hartigaaba dhalo halkaasna xaq baad ku leedihiin xaggeena qaadataa taana waa ina ogaataa marka waxa weeye maanta waxaan noo nimi inaynu ninka dhalinyarada ah oo aynu soo saaro inkastoo xildhibaanada Soomaalidu ay badan yihiin marka la doorto inaan la arago oo kaba kala gashanayo ka kala raacayo haddana waxaan hanaga tagin macaan halka aad joogto loo joogo oo ku soo dhow dadka la ka tagin waayo xildhibaankoodu baa tahay inta salaadiintu qabato ama nabadoonadu qabtaan in leeg baad qabanaysaa haddii lagu baahdo aan ku baahno waa lagu yeelaya haddii la xildhibaankeena waan ku yeelina annaga xildhibaan loo taagta iska dacid karo sidana waa inaad ogaato taa markaan ka tago waxa aan ku faraxsanahay dee meesha fardo badan baa maraya inagu faraskeena horta waa kan haddii faraskeena aad la hadhaana dee waa hadhaya haddii aanu wadnona waa cirkuu baxaya marka waa inaynu hil iyo hooba taageerno ninka oo niyad iyo afka ka taasina waa midda kale wax la yidhi habeenkiina oday baa la maalintiina habarhabare waxa aynu samaynaynaa waxa weeye haddaad anagu sidaa anigu aan idinkala soo qayb galay xildhibaanka garabkiisaan taaganay kursiga aan fadhiyo waan ag fadhiisanaya mar kasta idinkuna waxaanu doonaynaa xaggiina aniga xaggayga anaa dadkayga u yeedhanaya odayntii qaata kaalarka qaata miyi ka keena hawd ka keena etoobiyana waa digtaan waa loga kuwa etoobiyana noo soo ururiya inta doorashada ninka ayaan heli horta loola hadhin laakiinse waxaan leeyahay nin walba turki ayaa wuxu tara turki hadduu garab qabto oo gaashaan u noqdo uu garab galo ninkuu soo baxayaa laakiinse haddii loo kala maliiqiyo oo loo kala hadho waxba suurtogeli maayaan
marka hadda waxaad yeelaysaan warta wada jiraan wuxuu ku qabanno anigu waxaan ka socdaa qaybta beesha suudaanka aniguna ka socdaa waana idin salaamay laweynta gaashaanbuureed dhalinyarada cuqaasha salaadiinta aad baan idin salaamaya marka ugu horeysa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haddaan runtii xafladan qiimaha badan ee xildhibaannimada nimcaan cabdi aabi waan taageerayaa runtii waxaan idin sheegayaa dhalinyarta daayarta in kaarka ay qaadato maanta waxaa wada joogaa waa odayaal maanta dalka cidda hogaaminaysa waa daayarta waxaan u sheegayaa in dhammaan ay kaararka wada qaataan qofka maanta hiil wuxuu inooga baahan yahay waa codkuna wuxuu ku imanayaa in kaararka la qaato waana garanaysaan ilaahay naxariistii jannaca ka waraabiya nin qaaliyaa dhalay oo haliyey ahaa cabdi aabi inkastoo magaciisa iyo muuqiisaba garanaysaa way isu soo taagaysaa soo wiilin mayno waa nin ballaaran waan u wiilinaynaa codka waan ugu wiilinaynaa wax cod si aynu ugu wiilina waa inaynu kaarka qaadano waa in maa kaarsi waxba hiil samayn maayo waa ballantu kaarka ha la qaato ka ballanteenu waa kaarka ha la qaato isaga waan ducaynaa ilaahay soo saaro soo sharaxay horta anigu aqoon umaan lahi aabihii laakiin waan garanaya inanka laakiin aqoon uma lihi laakiin intiinan aqoonta u leh waxay isugu markhaati furteen inuu inan wanaagsan yahay oo aqoon laho dabeecad laho maxaan ku dhahay aqoon dee uu bartay iyo aqoon kalaba leh alxamdulilah marka laba kelmadood dardaarana ayuun baan odhanayaa mid aan dhammaanteenna khusaysa iyo mid isaga gaar u khusaysa waxa weeye ta isaga gaar u khusaysaa nimcaan cabdi aabiyow waxa weeye ilaahay horta xilkaa aad qaaday ilaahay ha kuu fududeeyo haddaad ku soo baxday iyo haddaan inaad ku soo baxdo waan ku rajo weynaa ilaahay ha kuu fududeeyo waxaanad iska ogaan doontaa haddaad ku soo baxdo yacni waxay yidhaahdaan dadkeennu waxay yidhaahdaan ninkii hebel maalintii aanu codka ugu ridnaa noogu dambaysay bay yidhaahdaan ilaahay kaa kaama dhigo mid yacni dadkiisa og oo mid itaal daran iyo mid hadalkiisa u baahan mid yacni inuu u hadlo u baahan iyo mid u baahan inuu wax u taro intaba mid og ilaahay ha kaa dhigo kulley anaa hadhay looma hadlo ragga intiisii badnayd hadalka hoos ka daba qaadatay way ducayseen ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu ducadiina ay aqbalo si aan dalkayga iyo dadkayga iyo caasimadda jamhuuriyadda somalilandba aan ugu shaqeeyo waxaa kaloo doonayaa halkan inaan ka baraarujiyo dhammaan shacbweynaha reer somalilan sidii wadooga waxaa nagu soo foodle doorashadii codbixiyayaasha jamhuuriyadda somalilan oo inaga xigaan maalmo kooban waxaan rajaynaynaa inaynu qaadano kaarka codbixinta si inaga ka degma ahaan waxay nagu soo beegantahay 3 December 13 bisha 12 2020 ilaa 16 bisha 12 2020 waxaynu haysanaa waa muddo kooban oo ku siman 4 cisho waxaan rajaynayaa inaynu intaas ku diiwaangelisaan si ay ugu ceel baxdaan codkiina dhammaan martishaafta mar labaad ma salaamaya guusha inoo ballana wabilaahi tawfiiq aad baa ugu salaamaya